shaqaalaha gargaarka ee qaramada midoobay ayaa ka digaya in saadka gargaarka gurmadka degdega ah uu gabaabsi ka sii noqonayo gobolka Tigreega ee dalka Itoobiya halka oo toddobaadyo ay ka socdaan dagaalo u dhaxeeya ciidamada dawladda dhexe iyo kuwa maamulkaasi. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale waxa maanta lagu wadaa in kulankoodii ugu horeeyay ay yeeshaan gelinka dambe oo maanta oo Talaado ah dabcan ay yeelanayaan si ay uga wada hadlaan xaaladda ka taagan gobolka waqooyiga Itoobiya ee Tigray. Kulamadan isdaba jooga ayaana ku soo beegmaya iyadoo dawladda Itoobiya ay sheegtay in taangiyadeedu ay isu diyaarinayaan inay weeraraan magaalada caasimadda ee Mekelle. Dawladdu waxay mucaaradka TPLF gacanta ku haya gobolkaasi u qabatay in markaasi ay soo dhiibaan waqti kooban. dabcan Xasan Cali Giila ayaa warbixintaasi soo aqriyay oo haatan ila jooga. xasan sheekh cumar afhayeen u hadlay xafiiska isduuga arrimaha bani'aadanimada ee OCHA ayaa waxa uu sheegay in loo diiday oo laga hor istaagay in shaqaale iyo gargaarba ay u diraan gobolka Tigreeda. afhayeenkaasi waxa uu sheegay waxa muhiim ah in la ogolaado dhaqdhaqaaqa gargaarka iyo shaqaalaha gargaarka ka shaqeeya iyo sidoo kale in loo fududeeyo dadka ka cararaya colaadda inay isaga baxaan gobolkaasi. dhanka kale hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga waxay sheegaysaa haatan in tirada tiga reer Itoobiya ee gaaray dalka Suudaan ay haatan tiradoodu gaaraysa ilaa iyo 40,000 oo qof. xilliga hadalkan uu soo baxay ayaa ah iyadoo golaha ammaanka qaramada midoobeyna maanta la filayo in shirkii ugu horeeyay ay ka yeeshaan colaadda ka soo cusboonaatay gobolka waqooyiga ku yaala dalka Itoobiya ee Tigreeda. shirkan oo maqal arag ah ayaa imaanaya xilli dawladuna ay sheegayso in taangiyadeedu ay isu diyaarinayaan in ay weeraraan magaalada Mekelle oo ah magaalada xaruntu ah gobolka Tigreeda. dawladdu waxa ay u qabatay maamulka TPLF ee Tigreedu ee magaaladaasi maamula in ay soo dhiibaan ilaa iyo bari oo ah Arbaca. hase yeeshee hogaamiyaha Tigreeda ayaa waxa uu ku gacan seeray arintaas waxa uu sheegay in ay dagaalamayaan ilaa iyo marka ugu dambaysa. waxa uu beeniyay hadal ka soo yeeray dawladda oo ahaa in magaaladaasi Mekelle xaruntu ah Tigreeda ay ciidamadu dawladda ku hareeraysan yihiin. waxa jirta in boqolaal qof ay ku dhinteen colaadan socotay ku dhawaad 3 usbuuc iyadoo dad tiro badanna ay ka qaxeen. Tigreedu waxa ay dhankooga sheegeen in kasoo yeelan la xaqiijin oo BBC-du ay xaqiiqo u haynin in ay soo rideen diyaarad helicopter ah oo ay leeyihiin ciidamada militariga dalkaasi. waxa jirta sidoo kale magaalada Baxirdaar ee dhanka Amxaarada in iyaduna dadku ay bal eegayaan khasaarihii shalay ka soo gaaray duqeymo halkaasi ka dhacay. dhanka kale waxaa jirta in imaaraadka carabta oo aad xulufo u ah dawladda Itoobiya saameyn ku leh dadka dalkaasi inay sheegtay inay ka walacsan tahay colaadda ka jirta Tigreeda isla markaana ay sameynayso wax kasta oo karaankeeda oo Afrika loo sii marayo in colaadaasi la soo afjiro. laakiin waxaa jirtay in dadaalo badan oo midowga Afrika ay sameeyeen hore ay uga gacan saartay dawladda Itoobiya. waxaa jirtay marka in dawladda ay Tigreeda u qabatay inay soo dhiibaan ilaa iyo bari oo Arbaca balse hogaamiyaha Tigreeda oo hadlayna waxa uu sheegay in ay dagaalamayaan ilaa iyo daqiiqada ugu dambaysa. waxa ayna beeniyeen in dawladdu ay ku wareegsan tahay magaalada caasimadda ee Mekelle ee maamulkaasi. waxa jirta marka boqolaal qof inay dagaalkaasi ku dhinteen kumanaan kalena ay ku barakaceen. waxaana jirtay in ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Ahmed uu axadii sheegay in 27 saacadood oo dabcan ku eg bari oo Arbaca hadii ay dhamaato tallaabo xoog laga qaadi doona Tigreeda iyo ciidamadeeda magaaladana ay hareerayeen. ma jirtaa marka wax waan ah oo ku saabsan dhexdhexaadinta dhinacyadan dawladda dhexe iyo maamulka gobolka Tigreega oo socda? xasan waxa jirtay in imaaraadka carabta uu sheegay inuu ka walacsan yahay xaaladda ka jirta dalka Itoobiya. imaaraadku waxa uu xulufo la yahay dawladda Itoobiya. waxaanu sheegay inuu la xiriirayo midowga Afrika oo la doonayo sidii arintaasi loo soo afjari lahaa. jimcihii la soo dhaafay ayaa madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa waxa uu sheegay inuu magacaabay 3 madaxweynaha hore oo Afrika ah maadaama isagu uu yahay gudoomiyaha midowga Afrika si ay u dhaxdhaxaadiyaan dhinacyada isku haya. hase yeeshee dawladda Itoobiya arintaas way ku gacan saartay waxayna sheegtay in howlgalka socda uu yahay mid gudaha dalkooda ka dhacaya la doonayana in sharciga iyo kala dambeynta lagu soo celiyo gobolkaasi iyaga iyo nimanka Tigreeda ay ku tilmaameen dambiilayaalna aysan miis wada fariisan karin. marka waxaad moodaa dawladdu inaysan ogoleen inay la wada hadasho. waa tahay aad buu u mahadsan yahay Xasan Cali Geelle oo noo soo koobay wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda gobolka Tigreega ee dalka Itoobiya.